qoyska Caashe Ilyas oo ahayd gabadhii 12 jirka ahayd ee la kubsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo ayaa dhaliilay qaabka loo wado baaritaanka lagu sameynayo dadkii ka dambeeyay dilkii lagu la kacay gabadhooda. Aabaha gabadhan Ilyas Aadan oo VOA la hadlay ayaa sheegay inuu dareemay in wadadii laga weeciyay baaritaanka kiiskan. Aaba Ilyas ayaa xilliga oo VOA la hadlayay xusuus ahaan u watay boorsadii ay gabadhiisa iskuulka tagi jirtay. Nuux Muuse Birjaab ayuu ugu warramay magaalada Garowe. warbixintan ayuuna nuuxnoo hayaa. Ilyas Aadan waa aabaha dhalay Caashe Ilyas oo bishii February dabayaaqadeedii dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo. wuxuuna Ilyas soo gaaray Garowe si gabadhiisa cadaalad u hesho kadib markii uu dareemay sida uu tilmaamay in wadadii laga leexiyay baarista kiiska iyo horgeynta cadaaladda. gudoomiyaha gobolka wuxuu noo sheegay 4 kiiska in loo hayo oo dil ah oo gabadha dilay. sabtidii dhaweyd wuxuu yiri laba loo hayaa wax inta kale waa preview annana waxaan ku nira 4 baa sheegtay 4tii away PS tan la hadlay in leeyahay la shaqeey waxaan ku yiri labada nin sheegaysa maxay tahay wuxuu yiri annagu dad kale ma hayno biir labadii ninna waa dhoofinay madaxweynaha soo codsaday marka dadka kale waa sii daynaynaa waxba kuma hayno gudoomiyaha daraawiishtaan u dhiibaynaa afdalo markaasaan anagu iska soo kacnay Garowe nimid. Ilyas oo u waramay VOA ayaa dalbaday in sharciga islaamka la mariyo ragga geystay falkaasi. anagu waxaanu taaganahay shariicada islaamkaanu taaganahay qisaas baanu doonaynaa wax kale aan ka doonaynaa ma jiro. kiiskana waa kiis dil ah iyo kufsi oo ugu wali ka dhacay Soomaaliya. Ilyas ayaa ka maqnaa dalka markii uu dhacayay falkaasi wuxuuna tilmaamay in sawir xanuun badan ay ku reebtay dhacdadaasi qalbigooda. aad baan uga naxay gabadhaas markii la sheegay dareenka in la kufsaday oo haddana la dilay. aad baan uga xumaaday iyadoo dadkii Ilaahay ay jirtana la istaqdimuuna saacada wala istaakhiruuna ma dhaafteen mar walba dhimashadaadii laakiin waxay ku suubiyaan baan aad iyo aad uga naxay. markaa jigjigaan ka soo kacay wardheer baan soo gaaray 2 habeen baan wardheer joogay oo gaari laan ku joogay Gaalkacyaan soo galay markaan soo galayna gabadhii oo la aasay baan u imid dadkii loo hayayna dad deriskayaga ay ahaayeen oo 2 boos baa naga xigtay guriga intaa la goobahayayna iyagu hawshaasi ku jireen gabadhiina waa jir dileen ilbay ka tuureen ilkaa waa ka daadiyeen xabadka waa ka garaaceen way dagaalantay markii dambana waxay doonayeen bay subiyeen gabadhiina markii dambe qabrigeedii baa la qoday oo la diyaariyey laakiin waa suurtoobi weyday saan maqlay guriga ha loo dhigaa la yiri 11 saac habeenimo baa guriga la dhigay iyadoo jawaan ku jida madaxana bac uga jiro waa la keenay meeshaas. halkaas ayaa laga qaaday isbitaalka la geeyay DNA baa laga qaaday kabacdi markaas la aas. xilligii aan la kulmayay aaba Ilyas waxaa dhabtiisa saarneyd xusuusta gabadhiisa yareed ee Caasho boorsadii ay ku aadi jirtay iskuulka. Caashe Ilyas Aadan boorsadeedii weeye waxaan ka dhigtay mar walba inaan qaato iska wataayada boorsadaas gabadhii waan ku xusuustaa oo mar walba xusuusteeda aan ku haynaya أنا كنت حسوسنا هي أيضا أيام نركب وقرت برصة وعم كقطع هذا. برصة إسكول كي دكسي كوادي شرتي. برصة دكسي إسكول كوادي شرتي وياه. وبوقت كوادي شرتي. وبوقت كوادي شرتي. حسوسا ما أنت أوضح إن. حسوس بان أوضح تاريخ. intii aan la joogay wuxuu sidoo kale itusay sawirka gabadhiisa oo xilli walba u saaran shaashada moobilkiisa gacanta. sawirkeeda wuxuu igu jiraa moobilka mar walba waan daawadaa. ilaahay baan iga qaaday ilaahay baan siiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waalidka Caasho waxay ku qanceen dareenka ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan falkii loo geystay gabadhooda. waa mahadnaqayaa dadkii mataqaanaa Soomaaliyeed oo arrintaas ka kacay oo meel walba ka soo hadlay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.
maalmo yar oo uu joogay Garowe ayuu la kulmay Ilyas Aadan dhinacyada garsoorka oo ololeeyaasha xuquuqda aadanaha, wasiiro iyo ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. waan soo dhaweeyay kiiskan annaka ayaa inka aad ugu baahan biir dadkaasuna waa dil biir haddana haddaad shakadeen waxaan dirayaa qolyahan maartay guddi baan dirayaa biir abkaatayaal iyo la socdaan oo arrinta si fiican u soo baara aniga baad iga warsugaysaan cid kale aad ka warsugaysaan ma jirto dadkiina lama sii dayn karo ayuu madaxweynuhu yiri. Madaxweyne Deni ayaa u ballan qaaday aabaha iyo ehelada Caasho cadaalad marsiinta dadkii geystay falkaasi. waxaan aad uga xumahay runtii arrintaas oo kale inay meel uun ka dhacdo adduunka Soomaaliyana inay ka sii dhacdo Puntland aad baan uga sii xumahay. waxaan rajaynayaa insha Allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan